السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا فيديوغان قيبتان waxaan uga hadli doonaa sida aad price-ka aad u dooran lahayd alaabta aad Amazon aad soo gelinaysid. Midda koowaad, very simple and clear, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid waxa waaye in aad faa'iido aad ka samaysid alaab kasta aad Amazon aad keenaysid. Inta badan adoo xisaab dheeraad aan gelin faa'iidada waa aad samayn kartaa, balse waxaad u baahan tahay inaad some other factors aad ku dartid. alaabta hal mar haddii oo $1 ama $1 aad kusoo iibisid aad Amazon aad keenaysid, micnaha waxaa waaye at least 20 aad ku iibinaysid, ugu yaraan waxaa waaye $19 iyo waxaas ayaa kuusoo fuulay. Haddaba waxaad u baahan tahay price-ka markaad samaynaysid inaad isku soo dartid cost to price, qiimaha alaabta aad kusoo gaday lagu daray lacagta shipment ay kugu baxday, haddana lagu sii daray lacagta advertisement inta badan aad ku samayn doontid. Inta badan waxaa loo soo qaataa boqolkiiba $10 qiimaha alaabta markii aad heshid, cost price of productiga waxaa lagu soo qaadaa inta badan. Haddii aan soo gabagabeeyo, markii shipmentii aad samaynaysid qofka wuxuu kuusoo diri doonaa ama supplierka invoice-kaas oo isku jiro haddii aad supplierka aad kusoo gadatay alaabta oo shipment kuu sameeyey ama guriga usoo diray ama maxaa la dhihi jiray oo Amazon u diray, waxaad u baahan tahay total price inaad heshid oo macnaa alaabta qiimeed iyo halii aad dhoofinta dhan aad ku qarash garaysay inaad isku darsatid ayaad u baahan tahay. haddaba markii aad isku darsatid meeqa xabo aan kusoo qaado, lacagtoo dhan waxay ahayd $1,500 ayaa kugu baxday. $1,500 waxaad keentay 500 oo alaab ah. 500 waa u divide garaynaysaa, waa 1,500 divided by 500 waa $30 ayaa lacagta kugu fadhiso ay tahay alaabtaas. haddaba waxaad u baahan tahay in aad ku dartid ugu yaraan 10% oo $30. waxay noqonaysaa sidaan filayo inay $3 ay tahay. $3 markii ay noqoto waxayna kuu noqonaysaa qiimaha kugu fadhiisanayso alaabta, waxay noqonaysaa oo price-ka isla markaas $33. waa cost price of your good, alaabtaada qiimaheed waa intaas. marka haddii advertisement hadda aadan sameynin, haddii aad samayn doonin, qiimaha ugu yar oo aad ku gadi kartid sidaas ayuu noqonayaa. marka haddaba waxaad u baahan tahay in aad faa'iido aad ka samaysid. inta badan faa'iido aad ka samaysid waxaad u baahan tahay inay noqoto ugu yaraan 20%. Amazon ma lahan xad aad alaabta lagu dhaha yaalaan ku iibi, ma lahan. haddii rabto 100 waa ku iibin kartaa sida faa'iido ay kugu jirto. marka waxaan ku soo qaadayaa qiimaha alaabta waad kaabagaraysay, qiimaha advertisement waa aad kaabagaraysay. waxaad keliyood u baahan tahay in aad dheeraad aad samaysid 20%. taasi waa mid nooc aad u isticmaali kartid. haddaba waxaa sidoo kale jiro, waxaad u baahan tahay inaad fiirsid alaabta nooca alaabta aad iibin hayso oo Amazon lagu iibiyo. haddii koob aad iibin hayso oo biyo ah, koob lagu cabo, waa inaad fiirisaa koobabka biyaha lagu cabo oo Amazon qiimahooda inaad fiirisid. waay ma lagaa rabo in aad isla markaas xaddaaf aad ku sii noqotid adoo faa'iido keli aad fiirinaysid. waxaad u baahan tahay in aad price range aad la lahaata, aadan ka sii badanin, aadan zaid ugu sii hooseynin. waxaad u baahan tahay in aad ayaga isla price aad noqotaan. sidaas ayaad u baahan tahay inaad ogaatid. taasi waa mid inaad ogaatid mar kastaba. midda kale labaad, price-ka oo soo raaco ayaa waxa ay tahay marka koowaad aad bilaabaysid Amazon. sidaad ogsantihiinba ganacsi, si aad u heshid review comment, sidaad u heshid waxaad u baahan tahay price lower ah inaad alaabta aad ku iibisid. taasi micnaheed waxaa waaye $33 haddii ay anagu nagu fadhiisatay, anagoo oo advertisement qiimaheedna aan ku darnay, waxaan u baahan nahay alaabteena keliya in aan ku iibino ugu yaraan $35 $36 si isla markaas
suuqa lowa aan ugu noqono oo alaabta ay noo iibsanto aan u helno comment and review. Marka priceka sidaas ayaa loogu go-aansada. waxaa kaloo kuusii dheer priceka markii aan ka hadlayno waxaad u baahnaanaysaa in aad priceka aad la socotid suuqa maalin kasta. waa inaad fiirisaa. inta badan dadka waxa ay zaaid priceka u bedelaan bisha markii dadka lacagta ay qaataan priceka wax yar hiking ayaa lagu sameeyaa, wax baa lagu daraa. markii bishi dhexdhexaad ay marto inta badan paycheck ba paycheck ayaa Mareykanka lagu sameeyaa 14 beri kasta lacag ayaa la qaataa. markii lacagta saas loo qaadanayo 3 beri 4 beri ka hor wax yar baa lacag priceka ku daraysa. markii lacagta la qaato ugu yaraan 7 beri oo kale lagu soo wareego, waayo 7 beri waa waxa waaye week labada week dhexdood ayaad joogtaa, priceka hoos ayaad usoo dhigaysaa. ugu yaraan qiimo jaban ayaad ku dhigi kartaa. haddii alaabta ay ku iibsantona waxa waaye uma baahnid inaad bedeshid. marka waxyaalahaas waxaad u baahan tahay inaad la socotid priceka.